السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق ميلك ستاجوكتينغ سو دوادا channel كيني حرمت cuntada caafimaadka walaashin shukri aadan bule asxaabta qiimaha badan meel kasta adduunka joogtiin soo dhawaada inagoo mahadsan intaan topigeeni maanta usii guudagelin ama cashirkeena ama waxay tahayba waxaan iga codsanayaa inaad subscribe sameysiin like garaysiin share garaysiin channelka sunuu koro oo mahadsantihiin maanta qasa aad u xanuun badan ayaa inii wadaa aan rabaa inaan la wadaago qasada maxaa waaye adduunkan intaan noosha waxyaalo badan ayaa arkaysaa dad waxaa jira adig ku neceb oo adduunka kugu neceb oo laakiin jecel inay kula noqdaan saaxiibo dadkaasna aad ay halis u leedahay oo dadkaas oo kale psychopath la dhahaa oo dadka maskaxiyan xitaa u xanuunsan qofkan haddaad tacarabin waxaa fiican inaad ammaanka iska sida bannaanka ka martid gabar yar oo Naomi la dhaho oo gabar waxay ahayd originaatkeeda waxaa la dhahaa Nigerian ay ka imaaday hooyadeedna dadkan waxay haayeen oo marka dadka albiniona jirkooda zaaid u cad yahay ahayd maamada markii waxay la soo dagaaltamtay ee ku soo qabtay maadaama ay dadka kale la mid ahayn ee zaaid jirkeeda u cadaa waxa ku dhacday kalsooni la'aan marka ilaahay wuxuu siiyay gabar yar gabadheedii yar ilaahay wuxuu iskugu daray xoogo yar oo midab furan iyo midabkii Afrikaanka ahaa garab waxay ahayd qurux badan aad u qurux badan Naomi UK ayay ku dhasheen halkaas ayay ku noolaayeen marka waxaa jirtay saaxiibo badan ee lahayd saddex gabdhood saaxiibo lahaayeen mid waxaa jirtay ee qaas ahaan zaaid saaxiibo wahaayeen iskugu dhawaayeen Naomi waxaa dhahay markay jirtay 20 jir nolosheeda caadi maasha Allah tabarakallah barwaaqo badan ay haysatay gaalada iga saaxiib fiican ayay lahayd oo nin ay la socotay shaqansato shaqada adduunka ugu fiican way haysatay Secret Victoria because iyada xijnada inay qurux badnaato dharkii waxaas fashionka shaqadiina way heshay soo marka waxa la 20 jirba nolosheeda si fiican ayay ugu socotaa dhahay maalin mid kamid ah 2012 markay ahayd December 29kii waa iska Christmas waa iidooda guriga ayay ordaysay waxay ka imaaday shaqadii waxay dhada hooyada cunto karinaysay waa la isku wada iimaanay familka dhan gaadarna isku iimaanay ay dhahday soo way farxsan guriga ayaan socday dhahday guriga ma socday Naomi wajiga ayaa waxa looga shubay markay gurigooda u jirto talaabo camal albaabka ayaa guriga asig baa wajiga looga shubay asig waxa waa wax aad u xun oo qofka bini'aadanka wajigiisa Ilaahay soo abuuro dhan wuxuu ka dhigayaa qof gubtaba dhaamo waa la dhihi karaa waa un dab oo laakiin oo chemical wax lagu shubay ah waaye chemical ay wajiga looga shubay Naomi way qaylisay markay qaylisay waa lagu soo caray reerkeeda ayaa soo qaadeen waxa la keenay dhinaca baafka oo showerka ah dhinaca lagu qubeysto marka waxa la biyo marka lagu shubo tartiib ayaa lagu shubay iyada marka saasay indhaha dhaxday indhihii wixii dhan israaceen wajigeedii dhan baaba ayuu noqday marka waa la qaaday isbitaalka ayaa la geeyay isbitaalka markii la geeyay waa la yaabay waxa la dhahay waxaan waa maxay wadamada gaalada way u badan tahay western country-yaashan in dadka lagu shubo asig wajiga looga shubo alxamdulillah rabbil alamin Afrikaanka ma badna even though uu jira ayaa ben sheegin laakiin sida gaalada kale naga manin wadamyaashan oo gaaladan cadaanka zaaid iskugu shubaan soo marka gabadhi waxa la dhahay dadkii oo booliiskii FBI-yaashii investigationkii way keeni waayeen qofkii wax ku sameeyay gabadhii markaas waxay qoreen magazinka ayay journalka waxay ku soo daawaceen iyada ayaa isas ku gashay sida u noqoto qof caan ah gabar qurux badan oo 20 jir ah oo saas u eg miyaa rabtay inay wajigeeda xumeeso gabadhii waxay gashay depression waxay soo fadhiisatay wararka nusiisha oo qof wajigiisa saan maxaa ka helay wajigeeda saan because way heli waayeen booliiskii markay investigationkii sameeyeen muddo ayay qaadataa la dhahay markaas gabadhii way diiday waxda aniga wajigiisa ani waxba daba socday dhaday qof wada madow oo indhaha dhexday wax ku xiran yihiin ay dhahday oo mask ku xiran yihiin aniga mask ku sameynay dhahday way diiday iyadana way dagaaltamtay fiidiyoyaasha idaacadaha soo fadhiistay xidada xasma dhacaysay dhahday marka booliiskii dib ay shaqadii u galeen way sii raadiyeen waxa la ogaaday habeenkaas oo dhan dhinaca CCTV-ga ayaa wax laga arkay qof wada mugdi ah jaakad iyo boorso wato indhahana niqaab ah xiran shareer ah xirneed in Naomi meesha martaba ka dawmaraysa marka xalay qofkaas waxa lagu soo day newsyaasha waxa laga arrin qofkaas oo kale soo qabta la dhahay gabdhihii labo kamid saaxiibadeed ahaan jiray markay yareen iskuulka soo baxeen dhaheen markay Allah waxaan u maleynaa taas mid kale jirto saaxiibtada inay heblata u maleynaynaa markaas dhaheen laakiin ma rabna inaan ka fikirna inay yada tahay because u socoto waa loo jeedaa inay yada tahay iska aamuseen marka xalay qofkii ugu koowaad Naomi markii guriga la keenay ama isbitaalka gabadha saaxiibtada ahayd qofku waxaas ku sameeyay saaxiibtii qaali ayay ahayd riyaab حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا وذا كان مقالنا شرط بالآدم كأه
oo jiniyaash ah waa iska jiniyaan dhahay qof bili aadan inaas u gashid haddaa rabin ammaan sii banaanka mar laakiin inaas uga way saaxiibteedii ahayd primary ilaa high school ee saaxiibis lahaayeen ayaa gabadha wejiga u gashay inta la ogaan marka waxaa lahay qofkii ugu koowaad ahayd oo isbitaalka ugu tagay habeenkii dhan soo waceysay party gabadha loo dhigay isbitaalka laga soo saaray oo haddana u imaaday iska dhigtay inay saaxiibteed qaaliga ahayd la yaab markii dambe waxaa la dhahay maalintaas ee boorsada watay maalin kamid ah kuwii investigate garanayay booliisyaashii ayaa boorsadeeda arkay boorsadeeda markay arkeen waxay ku laabteen CCTV-gii qofkaas boorsadiisa iyo tan boorsadeeda waa isku mid waxaa loogu wacay hadda ka hor gabadha Naomi ayaa la weydiiyay xalay qof miyaa weligaa kugu hanjabay inuu wejiga kaaga shubo asig hay dhahday tii saaxiibtaas ay sheegtay markaas dhakhtar inuu booliiska way ka shakiyeen tii loo wacay waxaa loogu wacay dhinaca oo investigationka booliisyaasha in la weydiiyo markii la keenay boorsadeeda la arkay waa laga aamusay boorsadeeda la fiir boorsadeeda waxaa ku dhex dhacay sida way gubneed sidii qof oo meel ka gubtay camal bas boorsadii ay intay gudaha iyada lagu jiro wax laga qaaday ayaa la dhahay oo la wareysanayay boorsadii exam laga qaaday waa la fiiriyay waxa la ogaaday boorsadan iyo boorsadii qofkii habeenka watay inay hal tahay la ogaaday soo marka waa la xiray markii la xiray tii gabadhii waxaa loo keenay gabadhii way u qaadan weysay waxay noqotay subxaanallah koomay gashay hebla lolo saddexdaas gabdhood kale way isla soo yariyeen labadaas gabdhood kale way kala tageen saaxiibsaas mintan ayay saaxiib zaid sii ahaayeen farda ma noqon karto gabadhii meeshii waxay imaaday maalintii oo koodka waxay weydiisay maxaan kugu sameeyay asas iigu sameeyay waxaa la gabadhaas way un ka xaasinimo way ka maseersanid bas gabadhan light skin ahayd kalarkeeda xoogo ilaahay ayaa xoogo yar midab furan ay leetana midabkooda mugdi ayuu lahay because way nacibaatay waxa la intaas un bay ku cuntay ee gaas wajiga ku shubtaa lahay gabadhan shaqo fiican ayuu ilaahay siiyay nin fiican ayaa shukaansanayay intaas yariisay saddexdaas intaas wax isku haysatay ay ku nacday marka waxay dhahday adigana ayaa isgubtay mar waxay shaqada iyada ku gudisay dhahday aniga aan isla ogeyn sidaas isku galahay inaa soo caan baxay adduunka dhan laga barto Naomi waxay dhahday beena sheegaysaa xalay qof adduunka jiro gabar 20 jir soo qurux badan wajigeeda halis gees ma wadacaysa lee or naga tagal qore tii waa la xiray dhahay markii la xiray waxa lagu xiray 20 sano even though Naomi waxay dhahday 20 sano xarigeeda uu yar yahay adina qof dhan nolosheeda sas u gashay dhahday Naomi waxay jidka ka maraayo qof kasta uu ifiiray qaar waa iga naxaan qorayga carraan laakiin xidad hadda la qabsaday dhahday jirkeeda xitaa markii wax marsanaysa wali waxa la waqti ayuu u baahan yahay dhibaato badan ay martay meeshan story waxaan ka faa'iideynaa waxa way dad xaasidiin ayaa jira isku ka dhiga adiga inay saaxiibo ku leeyihiin oo laakiin rabaan inay ku lugooyaan oo rabaan inay ku soo dhawaadaan soo waxa fiican markay iska ilaalino ilaahay baa ka maangalnay shartooda ilaahay naga qabo shartooda ilaahay wada ka maangalnay because walaan la yaab ilaa dadka kale oo dhan niman ayaa aasig iyo xas gabdhaha shaqooyinkan wada doona aasiga laakiin tan gabadhii saaxiibteed best friendkeedii ay ku dhimanaysay primary isla soo dhigteen middle class ilaa high school isla soo dhigteen intaas ku sameysay wajigeeda gabar yar oo 20 jir ah ilaa wadan ka maangalnay marka Naomi hadda dhahday ma fududay dhahday journey-gayga maalintaas taas ay dishay dhahday wadnahayga jabisay dhahday bad laakiin waan isku dayaa inaan xidhahday kalsoonideeda kor u qaado aan iska dhigay dhahday nolosheeda inaan sii wato halkaas nolosheeda ku baabi'in qasaad xanuun badan waayo wallahi waan ka naxay marka waxaan dhihi lahaa dumaro wada qof wax qabtid nolosha gabadha wajigeeda passport waaye halis ilaaliyo subxaanallah weliga qof muslim ah waxa u geysanin even though gabdhaha ma ku badna nimanka ayaa gabdhahaas ku sameeyaan ayaan arkay soo marka halkaas waxay ka tusaysaa in dad xaasidiin noloshaada ku jiraan in zaid kugu dhow yihiin qofka ku neceb ka fog ayaa fiican danka ku dhow ogeyn kaas adduunka ugu xunaa dhahay waa gabadhan kale qaar ka badan jira xitaa waxyaalo ku sii sameeyo oo la yaab leh jiro soo marka asxaabta qaaliga aan ilaalino ilaahaygeena aan tala saarno adkaartina aan akhrisano shayaadiin bilaadan ma noqon karo qofkaas oo kale soo marka maxalla storygaas aad ayuu xanuun badnaa u qiiro badnaa gabadhaas miskiinta nolosheeda dhan waa la bedelay iyadoo dhan waxay noqotay bilaadan ma noqon wajigeeda waxay noqotay subxaanallah bahal camal ayuu wajigeeda kusoo baxday you can imagine wax chemical qof wajigiisa dhan jirkiisa dhan gacmo xitaa ka gugubatay timiyo ka daateen indhihii marka magax ku daateen saasay dhahday markaas wixii dhan sii raaceen calool xumo aan ku dhahay acuudu billahi min ash-shaytaani rajiim soo marka wallahi aad ayaan ku xumaaday xanay asxaabteeda balama la wadaaga dad badan ay xidhan shukri soo wadaag qisooyinka ku soo dar xarunta hadda ka bacdi insha Allah waan sida u bilawnay halkaas ayaan ku sii guuda baxay wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh